السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada daawadayaal waa mar kale iyo walaalkiin Maxamed Cabdiraxmaan iyo qiso cusub oo aad u xiiso badan. Sida aynu maanta ka hadli doono waxay ku saabsan tahay in ka mid ah reer bani Israa'iil uu Ilaahay u nimceeyay iyo sidii uu ugu falceliyay. Waa qisadii ninkii la oran jiray Qaaruun ibnu Yashar. Kuma ayuu ahaa Qaaruun ibnu Yashar? Ma wuxuu Ilaahay siiyay maal aad u badan? Ma Nabi Muuse ayay ilmo adeer ahaayeen? ugu dambeyn sidee loo halaagay? su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa hadduu Ilaahay yiraahdo. sidaa iyo la socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, asxaabtaadana u sheer gareey. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. qaaruun ibnu yashar ibnu qaahif wuxuu ahaa nin ka mid a reer bani israa'iil, waxayna nebi muuse ahaayeen ilmo adeero. qaaruun markiisii hore muusan haysan maal aad u badan, balse Ilaahay ayaa wuxuu ugu nimceeyay xoolo iyo maal aad iyo aad u badan, ilaa uu ka mid noqday dadkii ugu hantida badnaa ee reer bani israa'iil. waxaana la wariyaa in qasnadihii uu lahaa qaaruun furayaasha lagu furo ay qaadi jireen rag aad u badan weynida furayaasha daraaddeed. balse nasiib xumo, qaaruun Ilaahay kuma shukrin nicmadii uu siiyey, wuxuuna ka qaaday kibir iyo isla weyni iyo inuu ku fasahaadiyo dhulka. qaaruun wuxuu sii kordhiyey maalkiisii, wuxuuna arlada Ilaahay ka buuxiyey dulmi iyo fasaad iyo isla weyni. ugu dambeyn wuxuu noqday qaaruun wasiirkii maaliyadda ee boqortooyada Fircoon. maalin maalmaha ka mid a wuxuu go'aansaday qaaruun inuu la soo baxo wixii maal, xoolo iyo adduunyo uu lahaa si uu ugu faano. dadkii adduunye doonkii ahaa ayaa la yaabay maalkii qaaruun oo waxay yidhaahdeen, maynu lahaano xoolaha uu Ilaahay siiyey qaaruun oo kale. qaaruun waa nin aad iyo aad u nasiib badan, balse arrintaa waxaa u diiday dadkii waxgaradka ahaa oo waxay ku yidhaahdeen, dadka rumeeyey Ilaahay iyo maalinta qiyaame ayaa ka kheyr badan waxa aad sheegaysaan. dadkii waxgaradka ahaa waxay marar badan u digeen qaaruun, waxayna ku oran jireen, aakhiro u shaqayso, Ilaahayna ka baq, maalkaadana waxaad ku samaysaa wax uu Ilaahay raali ka yahay, arladana fasaadka ka daa. balse qaaruun waxaa muusan maqlin oo fasaadkiisii ayuu sii watay. ugu dambeyn qaaruun waxaa asiibay cadaabkii Ilaahay oo sikimo gudahooda, isagii iyo maalkiisaba dhulka ayaa lala gooyey, waxaana guryihiisii ka haray wax yar oo lagu waana qaato. waxaana la sheegaa in uu dhulka ku sii socdo ilaa iyo maanta. waxayna bilaabeen dadkii jeclaa inay helaan maal badan inay qoomameeyaan, Ilaahayna u laabtaan. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadii qaaruun, wuxuuna Ilaahay qisadaasi ku sheegay suurado kala duwan. waxaana ka mid a suuratul qisas aayadda 76 ilaa 82. allahu aclam. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.